kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo telefishinka caalamiga ee Home Cable TV xarunta uu ku leeyahay Yurubta dhexe aanu waraysi kula yeelanay Xasan Shire Sheikh oo kamid ah dadka u ololeeya xuquuqda bini'aadamka isla markaana ah gudoomiyaha dalada difaacayaasha ee xuquuqda insaanka ee Afrika. Xasan waxa uu ku sugan yahay magaalada Geneva ee xarunta Switzerland oo kaga qayb galay shir caalami ah. waxaan Xasan kusoo dhawow Home Cable TV. ما تسمعت ولا بعض هم كيبل وسلامتين دمانتين يدقيستياش يضطر داودياش حسن شيري waxa uu ka soo qayb galay kulankii 24 ee qaramada midoobay ee kaga hadlayay xuquuqda insaanka ee Geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya. waxaana kulankaasi sidoo kale ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ay weheliyaan qaar kamid ah golaha wasiirada iyo xildhibaano sidoo kalena suxufiyiin heer caalami ah. waxaan Xasan Shire Sheikh weydiiyay waxyaalihii ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada Geneva. سلامتين شركاسي وحوها سيدا دادكا أفكا سوماليا كو هادلا تلفزيون كدا ودا أي أوجيهين با سوماليا حقوق دا آدناها أو إن مدابة مصيبة دير كتاقنين جيد سعود كيدا اللي حكمين أيو مصيبوينكا يمدكا إن لغو دوني إن لغو هرماريو ودي قوين هادو لا دير بيس ومرتي لكن هادو واحد مدى إن جانجويين إن مارت الوحى كم هي حد قد بيدا إن لغون سوا أفجروا يميز لغوه رمريو إن حقوق عادناها وعد إن أي مركان إن يصاب بحياة دوم إنيس مركا كوادو عيتاي إن سوماليا وسوجي ذاتي إن به إن باش عالمك أو سوجي ذاتي إن به ذاتك منطقة الدكانية قبلك إن أيضا الفهانتي دينا أي هذا مرتي معمولو يو دولة دحى أو الصوماليات أو عالم كأقوى هاي أي كسر بحيان إن وحي كينيسا إن مركن لهيري كريو إن لسكو أديو إن قاب يحنان مرتي حقوق أدنها لقوب اللعبو إن لديسو. إن حسن شيري waxaad ka mid tahay waxaad tahay gudoomiyaha dalada difaacayaasha xuquuqda insaanka ee Geeska Afrika. waxaynu ognahay in si weyn xuquuqda insaanka loogu xadgudbo guud ahaan Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya. maxaad soo dhan kartaa way ka bedeli karaan shirkan imika ka dhacay magaalada Geneva waxyaalaha ka jira dalka Soomaaliya. dalka Soomaaliya sida sheegtay in muddo aad u dheer baa tacaddi lagu sameeyay xuquuqda aadanaha Soomaalida. إن هنا قتمت مرتين مت إن قاب دولة نمو واحد يقول بكود عاي إن أو مت كمارت فكر كي مت كقول كي سرور سيجا يقانون كي ولا عليه لقبل لا بكون سجال بقول سجال يلهن كي إن مركي دولة بنترجع هي حكم كلو رجتي إن كذا مرة هو بقلايبه هير مرتين عبرنتو إن قطو يبربر كسومالي هو هذا قاب أدوين إلى قرن كي سومالي هو بربري قيبة كلا دوين يكلا بحين إن سويال جربان ربعان وسميه أمريكا إن بربر كاسي وحو كاني إن مرتي حوك سيادة استعمالان كوحوين كلا دوين كلا جوري قيبة كلا دوين أو هب قبيلو أبابلن إن توقشوين تذكيلو ليني إن كوفسية دعي إن مرت بركعينه تذكيلو سميني يمارتي سديت أو بيسرتان إن قرقار كيو دعي يو حيو فربضان ومارتي حاجة دميرك آد وحنون بدن يعني مركا هل حبين لحي طبعا أنا بس أفر لا تنك بيشة أيا قوان لقاهري عقود هذا الصومالي وحوله ومقام كريه إن عقد دير عقد جيد كدير يسوق الشيء أيوبا أنت هاي مدل ميدو الصبر له إنه لكن عقود هذا الصومالي ذا وحي وفي عن تاعي وعي تاعي إن ذات كل فهمتوا مركز تيجوان أي إسحاق دوران إن كدمبين تشرعية يورالتني ماذا إن يقانون كأو أدلو تهجريو إن ذات الصومالي ذا لبرم وحن لي هذا إن مسؤولية قبيل أما مسؤولية ديك أو قبيل كلية هن لقبحه مسؤولية جنبيك يا مت كمارتي نعفيك بإنت بين النقدان قفك شخصي هي وحاسب وكيستو مركز نعسق الأول حسابتهم تا ماين ستكاس أم بمسكح داس جرتو الصومالي قاعد يبدلوا أو قفك ونقد طلاني
oo dadka intiis ka laayo dalkiisa u cararo in laga baxo oo qofka sharciga lagu hagoolay sharciga baa lagu geynayaa dad qalad gashid taa ay noqoto waxa ugu hooseeyo ee xuquuqda aadanaha lagu dhisay xasan shire sheekh waxaa tahay gudoomiyaha ururka difaacayaasha xuquuqa lisaanka ee Afrika waana urur heer caalami ah adoo Soomaaliyana gudoomiyaad ka tahay xarumahiina aad ku leedihiin gudaha dalka sibaad uga hawl gashaan ma geliseen energy fara badan sidii dadkan aad u tababari lahaydeen mise sida caamiyan ba dhacda banaanadu baad ka hadashaan oo taan xuquuqda insaanka u doodaynaa sida Geneva oo kale ama wadamada dibadda laakiin exactly gudaha waxyaalaad ka qabataan maxaad ummadda Soomaaliyeed ka daawanaysa telefishinka caalamiga Soomaalidu wayna taqaanaa anaga xuquuqda aadanaha Afrika ee lagu difaacayo dadka difaaca xuquuqda aadanaha hawl muuqato oo la taaban kara baan meel ka qabanaa ha noqoto in capacity loo yeelo amba la tayeeyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo tii ugu dambeysay hadda ee magaalada Hargeysa hotel ka yiraahdo ku yaala Hargeysa ugu weyn oo Mansoor la yiraahdo ka dhacay oo dad fara badan oo qaybaha kala duwan ee afka Soomaaliya looga hadla keenay amba saxafiyiin ha ahaadaano amba dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha amba dadka nabadda ka shaqeeya ha ahaadaano lagu tayeynayo sida ay maaragtay u dhowraan xuquuqda aadanaha iyo sida ay naftooda u badbaadiyaan oo train lagu siiyay meelo kala duwan dadka Soomaalida oo hadda Geneva ay kamid tahay u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaan keenaa si ay uga qayb qaataan doodaha xuquuqda aadanaha ee lagu dhisayo tii gobol amba mid qaran amba mid maaragtay caalami waxaan kala toon ku tayeynaa inaan siino balaan la xiriira xagga nabadgelyadooda IT-ga oo dhanka maaragtay laga tababaro si ay macluumaadkoodana si wanaagsan ugu xafidaan waxaan kala toon u abuurnaa wax la yiraahdo tababaro la xiriira inay la falgalaan ay bartaan sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha lagu dhowro iyo midka goboleedba si ay maaragtay ay u noqdaan dad ka warqaba waxa ka jira caalamka haddii tii qarameed ay waayeen sharci wax lagu dhowro inay higsadaan tii gobol iyo tii kale caalami Soomaaliya Somaliland Puntland meel walbaba dadkaas u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha way joogaan Djibouti Kenya Tanzania gobol kasto meel Soomaaliya Ethiopia gobol kasto dad Soomaaliya ku hadlaan afkooda dad baa noo jooga xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo oo difaacno haday dhibaato la soo kulantana aan gacan u fidino marka kale tana aan tayeyno awoodda ay u leeyihiin inay ku difaacaan xuquuqda aadanaha dadka Soomaaliya ku hadlaa ama dadka Soomaalida ama dadka Afrikaanka ah waxa kale toon sameynaa oo aan u suura gelinaa inaan ku xiro hay'ado caalami ah la san qaadi karaya howlaha marka ay isu xilqaameen amba la hawl ah oo jooga caalamka si ay isaga kaashadaan sidii maaragtay howlahaasi loo tayeyn lahaa wax lagu qaban lahaa dhanka kale waxaa jirta in sidaasi ka duwan isla journalistayaasha ama suxufiyiinta Soomaalida maalintii iyo habeenkiiba jidka sacad loogu dilo iyagoo mihnadoodii saxaafadeed gudanaya dadkana xaqaaqi jiray u soo gudbinaya marka dhinaca Soomaaliya eegno aynu kala qaadno waad aragto dilka ugu badan adduunka baa ka qaynaya waxay dhahaan the dead list of journalists on the world waa Soomaaliya waxaana jira saxaafadda oo iminka baarlamaanka la horgeynayo aad ay uga qaylinayaan taasi haddii la hirgeliyo ma dilkiibu sii badinaya mise wuu ka khafiifinayaa qaabkiibaad iyadana wala saxafiyiinta Soomaalidu waxay kamid yihiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha safka hore ku jiro xaqa saxaafadda midda urursiga iyo midda faafintu wuxuu sal u yahay xuquuq kasta oo qof wadaniga uu ku raaxaysto qofka wadaniga isma urursan karo ma banaan bixi karayo fikir ma abuuran karayo oo asaga wax ku ogaado haddii aan saxaafaddu aysan inform garayn xaqa nolosha xaqa dhaqdhaqaaqa xaqa sharciga dhammaantood waxa maaragtay isu dab qaado oo opinion wada abuura waa saxafiyiinta wey dilkooda iyo dhibaateynteedana waxay dhibaato ku tahay bulshadii xaq ay u lahayd inay wax ogaadaan inay la socdaan maaragtay wixii markaa wadankooda ka jira wixii caalamka ka jira marka waa nacladeena taa saxafiyiin saad sheegtay fara badan oo Soomaaliya naftooda qaaliga ah u waayay maxaa yeelay mihiinada oo xalaasha ah ay ka shaqeeyaan oo wadankooda tiilo arrintan kusoo biirtay marka taasi amba sharci ah loo sameeyo amba loo sameynin waa wax qeyr sharciya waa in dawladda markaa jirta iyo ciidamada xataa maaragtay soo farageliya Afrikaanka dhamaantood xil la iska saaro sidii maaragtay dadka u dhaqdhaqaaqa saxaafadda
loo damaanad qaadi lahaa in ay shaqadooda u gutaan ayaga oon faragelin lagu sameyn tan sharcigan cusub hadda fikir baan ka dhiibanay waa sharci la saan qaadaya meelo qaybo kamid ah ma ahan xorriyadda qowlka iyo tan cabirka qaybahaasna waa loo gudbiyay si cad baa loo gudbiyey oo la yidhi arrimaha laga maaragtay leexiyo qodobo kamid ah waxaan rajeynayaa in taa maaragtay wax laga qabto intaan sharciga uusan baarlamaanka uusan baas gareyn gabagabadii barnaamijka inagoo ku jirna waad ogeydo madaxdii ugu sarreysay dowladda federaalka ah ayaa joogtay shirkan laga hadlayay xuquuqda insaanka oo beeshii caalamkii goobta joogtayna ay dhegaysanayeen amaba arkayeen xaqaa'iqii jiray ee laga waramayay ka jiray geeska africa maxaad soo kartaa dowladdii oo prime ministerkii joogay way ka kororsadeenoo feedback bay ku celinayaan dalkii ma u malaynaysaa inay halkan wax kasii kororsadeen oo hadhow ay ku hawlgeli karaan sida muuqata waad og tahay soomaaliya muddo dheer bay ka maqneed goobta caalamiga ah goobaha caalamiga ah ee looga doodo xuquuqda aadanaha heerkii ugu sarreeyey ee soomaaliya uga qayb gasho abadi aan dhihi karaa ayay markan ku timid inay ka qayb qaadato golaha qormada midoobe u qaabilsan xuquuqda aadanaha weli ma aysan dhicin in heer intaa la eg dowladda soomaaliyeed uga soo qayb gasho gogol u taalla in looga doodo xuquuqda aadanaha soomaaliya taa waxay tusinaysaa in ismuujin iyo rabitaan dhankii dowladda inuu jiro oo ah bal in la kaabo dhanka dib u dhiska xuquuqda aadanaha sida qaybaha kaleeto burburay dhaqan dhaqaale iyo mid bulshaba in loo dhiso loo baahan yahay soomaaliya marka taasi waa commitment noocaas taa macnaheeda maaha in xuquuqda aadanaha soomaalida ay hadda step kaleta u gudubto laakiin waxay tusinaysaa in arrintaasi encouragement ay u tahay in tallaabo hore loo sii qaada ay noqotaan casharabay ka barteen dhaliilo badan baa loo soo jeediyey oo wax lagu dhisayo waxaan rajeynayaa sida uu ballan qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo intii kaleeto mas-uuliyada meesha joogtay in ay ka dhameeyaan sida ay uga go-an tahay in ay qaladkii ka jiray dhanka xuquuqda aadanaha inay wax ka qabtaan ilaa inta tabartooda ay gaarsiisan tahay ogolaadaanna in maaragtay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo ka mid tahay bulshada rayidka in ay la saan qaadaan sida amba ay far muuqaan markii qalad uu dhaco markii dowladdu ay yaro gaabiso markii qalad hay-adaheeda cadaaladda ay yimaadaan aysan dhibsanin dadka si maaragtay loo wada dhiso xuquuqda aadanaha iyadoo maaragtay dhinac walba laga galay kala fartoon cabdisalaan aadan gudoomiyaha elman peace and human rights center waan kula kulmay magaalada Geneva ee xarunta Switzerland ayaan weydiiyey waxyaalihii ay u soo gaadhay magaalada Geneva. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kuma hadsanta hortina noo timaadeen oo ma wareysanaysaan. Waxaan u nimidnaa waxa looga hadlayaa shirkan human rights-ka waxaana kasoo qayb galay dad badan oo dowladda u badan naguna maadaama aan ka shaqeyno human rights-ka waxaan ahayn dadkii loogu casuumaan ku jira. Fortuna Cabdisalaan aadan waxaa tahay gudoomiyaha Elman Peace and Human Rights Center xaruntiinu ay tahay magaalada Muqdisho waxa ka shaqeysan xuquuqda insaanka ilaa markii aad soo bilowdeen ilaa maanta waxyaalaha idin qabsoomay la taaban karo ee aad isleediin xuquuqda insaanka waad ku soo kordhisaan ama waxaad ka qabateen maxaa kamid ah والله حقوق الإنسان كصومالي horta in wax la qabto in la bilaabo oo la dadaala ka horeyso anagu Soomaaliya dhibaatada ka jirta iyo waxyaabaha xuquuqda insaanka horta aad ay u dhibaato badnay still way dhib badan tahay laakiin waxaan nahay dadka ka hadla adduunka u sheega waxa dhib ka jira laakiin in wax laga qabto oo wax laga bedelo waxa sameyn kara dawlad illa dawlad xoog la helo xuquuqul insaan ma dhismi karo marka taasna waa waxa aan mar walba Ilaahay ka baryan inaan helno dawlad xoog leh oo ummadda Ilaahay xaqooda siisa islaynta aynu ku guda jirno Elman Peace and Human Rights Center idinka u doodaya xuquuqda insaanka meesha aad joogtaan ay tahay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xaruntiinu tahay idinka laftiina dhibaato mid soo gaadhaa aad iyo aad wayna soo gaartaa wayna nagaartayba aniga Elman wuxuu ahaa ninkaygii waxaana lagu dilay xuquuqda insaanka u doodi jiray uu ku dhintay marka dhibaatada na soo gaartay waa mid weyn anaga kaliya ma badan soo gaartay andaad waxay nagu sameynaysaa inaan
soconno hadalno oo qof unin wax ka qabta meeshii haddii la yirahdo hebel waa dhintay kan waa la dilay kan waa la abuse garay haddana aan waxba laga qabanayn waa dhibaato laakiin in wax laga qabto dowladda ku xiranta anagu waxaan leenahay inaan dadkii markaas informationkii waxyaabihii dhacay xogta aan aruurin xogta markaa aruurisid waxaad la taa meel justice iyo cadaalada sugaysaa taasaana sugaynaa haddii ilaahay waxaan horta elman ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannaha ka waraabiyo ayaanu leenahay maadaama elman uu ahaa odaygaagii islamarkaana lagu dilay isagoo faraha kula jira arrimahan xuquuqda insaanka oo bulshadaas danyarta ah ee aan hadli karaynin xaqooda inuu soo dhiciyo isku dayo oo u dhintay adiga cabsima kugu abuurtay laftaadu in yoomin al ayaam ay dhibaata kaa soo gaari karto maalin walba markasta igu abuurtaa shaqadan aan wadnaa runtii waa shaqadii asiga u qaban jiray ciyaalka wax la baro traininka waxaasoo dhan xaaladda xamar oo lagu shaqeynayana aaday u adag tahay laakiin waxa aan qabanayno waa waxa anagu dooranay in aan ku shaqeyno waana riski laakiin riskigaas waxaa ku shaqeyn kara qof isagoo ugu talagalay ha ahaato laakiin haddana waxaa ku motivate garaynaya marka aad aragto waxa aad qabanaysa inay wax bedelayaan oo dadkii wax u qabanaysid ilaaha qofba mu ahaado oo qofkii wax isbedelayo noloshiisi bedelmayso daad waxay kaa dhigaysaa wixii aawad inaad sii shaqaysid ha ahaata keliya laakiin aniga caruuraan leeyahay gabdhahayga waxay igu yiraahdaan meeshaan aabaheenaa ku dhintay hooy ama adigana lagugu dilaa waa waxa maalin kasta walwalka igu hayo ha ahaatee ayaga iga daba yimid hadda waxaan wada joognaa xamar waanan ka wada shaqeynaa marka waa riski weyn laakiin waa anagaa dooranay sida ka waajisay waxaa jira ciyaal aad tababartaan ciyaalka qaab noocee baad kusoo gacan gelisaan ama qaab noocee baa laydinku keenaa ciyaalka horta waxqabadka hadda aan qabano ciyaalka magaalada muqdisho howlaha farsamada 80% dadka ku shaqeeya telecommunication korontada maxaan ku raada carpenter waxay ka baxeen iskoolka elman maadaama dadkii lacagta leh ay aadaan iskuulada wax lagu barto normalka ah waxaa yaraaday farsamadii gacanta lagu qaban jiray qofna cunugiisa lacag kama bixiyo si uu farsamo u barto marka anaga waxaan sameynaa programmada ah in ilmahaas ay farsamada bartaan kadibna ay ku shaqaystaan runtii ayna aad shaqo ugu helaan oo waxyaabaha aan hadda qabano oo xamar kaliya ma aha xataa gobolada qaar aan ka qabano waa it shows markaad Soomaaliya joogto waa arkaysaa hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Geneva ee xarunta Switzerland waxaana aad ka qayb gashay shirkii 24aad ee laga hadlayay xuquuqda insaanka gaar ahaanna lagu focus gareynayay Geeska Afrika dalka Soomaaliya oo xarunta adigu ay ku taalo ee Elma Peace and Human Rights Center maxaad is oran kartaa shirkani uu ka bedeli karaa dhibaatooyinka kufsiga dilka journalistayaasha kuwa lagu hayo iyo guud ahaan dhibaatada loo geysanayo dadka danyarta ah iyagoo aan xaqooda dhacsan karayn wallaahi waa rajaynaynaa inuu wax ka bedesho maadaama ay dowladii timid prime minister ugu horeeyo haddana ay balamo qaadeen waxyaabo badan inay wax ku bedeli doonaan midda kale waxaa meesha isugu yimid international community oo dhan ayaguna waa dadka Soomaalida saboor gareeya oo dowladda caawiya marka in dowladii dadkaas hortooda ay ku tiraahdo waxbaan qabanaynaa waxbaan bedelaynaa waa runtii anaguna aan joogno aaday noogu ahayd muhiim marka waxay noqonaysaa dowladii waa tirahdaan waxbaan qabanaynaa maxaad noo qabateen su'aasha dambe ku xigto adigoo ka faa'iideysanaya fursadan caalamiga ee telefishinka Home Cable TV maxaad u gudbin lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ka daawanaya telefishinka bulshada waxaan u gudbin lahaa horta in dhibaato badan Soomaaliya ku dhacday wayna jirtaa aanan rajo dhigin in dowladda hadda aan haysano lala shaqeeyo si aan u helno cadaalad iyo justice midda kale waxaan dowladdan in meelo badan ayaa jiray oon tagnay oon uga sameynaynay inaan advocacy si aan u helno dowlad oon sharci ah la anaga haddaan nahay haween iyo caruur sharciga u baahana sharcina waxaa lagu helaa inaa system heshid iyo dowlad marka runtii waxaan leeyahay dadku ha caawiyaan dowlad